taliska booliska maamulka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaarihii ka dhashay rabshadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Hargeysa. afayeenka booliska maamulka Soomaaliland oo shir jireed ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in rabshadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Hargeysa ay ku dhaawacmeen ilaa 10 askari oo kamid ah ciidamada booliska maamulka Soomaaliland halka 3 kale oo dad shacabina ay ku dhaawacmeen. afayeenka booliska waxa uu sheegay in rabshadaasi ay ka dambeeyeen dad ulajeedooyin kala duwan leh isla markaana ay faylkooda gacanta ku hayaan. waxa uu sheegay in gacanta ay ku soo dhigi doonaan isla markaana ay sharciga horkeeni doonaan. waa kan afayeenka booliska maamulka Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya. amniga dalka ciidanka bilaysku waxa uu u xil saaran yahay ilaalinta nafta iyo maalka iyo hantida dadweynaha muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo cid kasta oo ajaaniba oo sifo sharciya ku joogta dalka. arrintii xalay ka dhacday degmada Axmed Dhagax waxa ku dhaawacmay 10 askari oo bilaysa iyo 3 qof oo shiciba. waxa la boobay meherada ka ag dhawaa halkaasi. waxa la burburiyay gaadiid wadada marayay. waxa xidhmay isu socodkii gaadiidka ee degmadaas oo dhan. taas laguma sheegi karo isu soo bax iyo mudaharaad iyo cabasho midna. arrinta shirkadaha isgaarsiinta ee dhinaca internetka ee ilaa shalay toole ay bulshadu ka cabanayeen waxa jirta waa arrin ay gacanta ku hayaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu. waana arrin go'aankeeda aynu ka sugayno halkaasi. inta ka horeysa bulshada reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa waxaan u soo jeedinaynaa in ay isdajiyaan isla markaana xukuumadooda ay doorteen iyo maamulkooda dawliga ah ay ka warsugaan wax alla wixii jawaab ah ee arrintaasi ka soo baxa. ciidanka bilaysku mar walba waxa uu heegan u yahay inuu sugo amnigiina, inuu ilaaliyo nabadgelyadiina iyo in uu dhowro wax kasta oo aad ku kalsoontiin inuu idinkula kalsoonaado. sidaa daraaddeed ciidanka bilaysku waxay dadweynaha uga digayaan in ay arrintaasi xalay dhacday oo kale ay ku kacaan si ay u khalqalgeliyaan amniga. arrinta xalay dhacday waxa mas'uuliyadeeda qaadan doonta ciddii arrintaasi ka dambeysay. waxaanu horgeyn doonaa hay'adaha sharciga. hadalka afayeenka booliska maamulka Soomaaliland ayaa ku soo beegmay iyadoo saacadii la soo dhaafay dadweyne aad u fara badan ay mudaharaadyo kala duwan ka dhigeen magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera kuwaas oo dadku ay uga soo horjeedaan qiimo koror ku yimid qiimaha internetka iyagoo dadkaasi ku muujinayay sida ay uga xun yihiin isla markaana ay uga soo horjeedaan qaar ka mid ah shirkadaha ku yaala magaalada Hargeysa.